qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena galabnimo maanta waxaa ka mid ah Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay in ciidankooda ay hadda u diyaarsan yihiin inay dhulka u galaan Sacuudiga. Yaxya Sariic ayaa ku haya oo arinta dul istaagay. Waxa uu leeyahay 1 milyan oo dagaalyahana ayaa diyaara. Xaaladdu waxay u muuqataa inay faraha ka sii baxayso. Xuutiga Sacuudiga isku urursanaya. qodobada soo kale aanu barnaamijkeedu ku haynayna waxaa ka mid ah xulufadii isku dubaridanay Sacuudiga 14 dal ayaa lagu waramayaa inay diyaar yihiin inay Sacuudiga garab istaagaan 14ka dal waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Djibouti. waxaan ku hayaa faahfaahinta arinta ku saabsan iyo warbixinadii laga qoray iyo qatarta ka dhalan karto in hadda Xuutiga dagaal lala galo. qodobada soo kale aanu barnaamijkeedu ku haynay iyana waxaa ka mid ah Mareykanka maanta mar kale waxaa ku dhacday dharbaaxa kulul. Iran waxa ay weerartay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Kuwait tan oo mar kale ay sheegeen Iraniyiintu inay uga jawaabayaan weeraradii Mareykanka uu ku qaaday Qasham Island. waxay u muuqataa xiisadda Mareykanka Iran ee faraha ka sii baxayso. wararka sidoo kale ka imanaya bariga dhexe ayaa tilmaamaya in ay jirto suurtagalnimo in Israa'iil ay dagaalka ku soo biirto. qodobada iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijkeena galabnimo. magacaygu waa Mustafa Ali, halkan waa Kow Somali Media. aynu ku bilowna barnaamijkeena. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay in dagaalka Sacuudiga uu ku soo qaaday dalkeeda uusan ku dhamaan doonin sida ay malaynayaan Sacuudiga iyo xulafadiisa. Xuutigu waxa ay sheegeen in dagaalyahanada Xuutiyiintu ay diyaar u yihiin dagaalka in meel adag ay gaarsiiyaan. Yaxya Sariic oo arintan ka warbixiyay ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Yemen ay ku bishaaraystaan inay ka adag yihiin difaaca dhulkooda iyo dalkooda badooda guud ahaan. waxa uu Yaxya Sariic sheegay haddii nabad la doonaya anagu waxaanu nahay nabad dadkeeda, haddii dagaal nalagu wadana waa naqaanaa sida loo dagaalamo. waxa uu Yaxya Sariic sheegay inay u diyaarsan yihiin dagaal dhulka oo ay Sacuudiga la galaan oo xuduudaha la isu dhaafo. tani waa halis weyn. Yaxya Sariic waxa uu sheegay in dagaalyahanada Yemeniyiintu ay u diyaarsan yihiin. waxaan kula wadaagi doonaa qayb ka mid ah hadalka afayeenka Xuutiyiinta. hadda waxaa faraha ka sii baxaya khilaafka labada dhinac kadib markii Xuutiga ay sheegeen in Baabu Mandab ay ka xiran tahay Sacuudiga waa badda Cas. laakiin Sacuudiga waxa uu geed dheer iyo geed gaaban u fuulaya sidii uu furan lahaa. marka hore si aan kula wadaago hadalkii afayeenka Xuutiga. وحداتها العسكرية. والشيء الآخر يصل رسالة لشعبنا العزيز أن قواتك المسلحة والجيش جاهزون وحاضرون للمواجهة ولرد أي عدوان أو أي معتدي على بلدنا. أما بالنسبة لدول العدوان وعلى رأسهم الأمريكي والسعودي والإماراتي فهذه رسالة إن أردتم السلام فنحن أهل السلام، وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون وحاضرون في الميدان. وما بعد هذه المناورة بإذن الله لن يكون كما قبلها، فستشارك في هذه المناورة كل الوحدات من الصاروخية والمسير وسلاح الجو، وكذلك كل الوحدات البرية ستشارك في هذه المناورة، وهي إعلان جهوزية تامة وكاملة لأي معركة قادمة. Sacuudiga maxaa bal nimankan oo ka sii jeeday u geey. hadda waa kana dagaalkii wuxuu uga jira dhexda. ninkan Xuutiga wuxuu leeyahay annaga Mareykan iyo Imaaraat iyo cid walba oo dagaalkan la soo wato. hadda Sacuudiga 43 dal ayuu isku keenay si uga dhaadhiciyo dagaalkan inuu yahay dagaal caalami ah. xulufaysi wada maxna Israa'iil tan danab ugu jirta culayska ka yaraanay. Xuutigu waxay u heshay meel ay ku jeediso, meel kale ku mashquulaan ay u sameysay. macna nimankan Xuutiyiintu ay leeyeen war anaga Sacuudiga cid kale uma socon. Mareykanka kala nabad galnay wuxuu Sacuudiga hawadeena ka soo doonay oo loo diiday inaan dhulkeena u soo galno. safarkoodii markay Teheraan ka soo noqdeen ayaa loo diiday inay Sanca ku soo degaan. qodobkan meesha uga tago bal aan isla eegno qodob kale oo kan la xiriiro. 14 dal ayaa lagu waramayaa in ay ogolaadeen inay qayb ka noqdaan xulufada Sacuudiga u doonaya inay garab ku siiyaan dagaalka Xuutiyiinta. 14 dal waa qayb ka mid ah 43 dal ee Sacuudiga wasaaradda difaaca ay sheegtay oo warbixintii hore idin kula wadaagnay in ay doonayso inay dagaalkan kala qayb qaataan. dalal reer Yurub iyo reer galbeeda
weli dagaalkan kuma dhawaaqay inay soo galayaan marka laga reebo Sacuudiga iyo kooxo kale hore u watay laakiin sheekada yaab kale ayaa waxa ay tahay dalalka hadda ku soo biiray oo ku dhawaaqay inay garab ku siinayaan Sacuudiga dagaalkan waxa kamida waa dalal ay ku jiraan Turkiga Masar Suudaan Djibouti waxa sidoo kale saxiixay Kuwait Bahrain Qatar Imaaraadka Jordan Yemen Bangladesh Nigeria bal Soomaaliya iyo Djibouti maxaa dhibaatadan geliyay sheekadan khasan ee walaaqan dagaaladii hore laga galay nimankan xulti wax lagama barnaa islaada macnaha siyaasiyiinta adduunyada dalalka hogaamiyay mararka qaar waxba kama bartaan nimankan xulti waa niman buuro dhex degan niman dawlad iyo wax ka burburay ma ahan waa niman jabhada sidii dawlad weyn oo maanta ciidamada iyo wasaarada iyo wax weyn oo sida Iran iyo wax laga burburinayo ma ahan mid kale meesha ay degan yihiin waa meel istaraatiijig ah Suudaan iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyaga u baahanba Yemen iyo baalki Yementa lagu sheegay waa isla Yementii Yementa waa kooxda cadan joogto oo markii hore dagaalka ku jirtay Bangladesh iyo Nigeria Sacuudiga kaalmeeyo Bahrain iyo Kuwait iyo Qatar iyo Imaaraadkana way ku qasbeen inay garab siiyaan Masar iyo Turkina xulufay ka raadsanayaan oo meesha waxa leeyahay dagaalka aan wada galno Pakistan heshiisay kula jirtaaba Sacuudiga inkastoo hadda warbixintan aan ka arkin Pakistan kama arkin waa waxyaabaha aan la yaabanahay in Pakistan oo Sacuudiga heshiis kula jiro oo ka mid noqda dalalka dib isu dhigay reer Yurub ay dib isu dhigeen in uu horay kaga soo galo in Jordan iyo Soomaaliya iyo Nigeria iyo Djibouti iyo Suudaan iyo Masar iyo waxyaabaha waxay ku tusaysaa macnaha xasilooni darrada caalamka mararka qaar inay siyaasiyiinta qayb ka yihiin Pakistan waxay ciyaaraysaa maalmihii u dambeeyay siyaasadda inay isku daydo dawladaha iskhilaafsan inay xal u keento oday dhaqameed ay matalaysaa waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka meesha aan uga tagno intaynu galin weerarkii ugu dambeeyay Iran ay ku dhufatay Kuwait waan idinkaga diyaariyay warbixin cajiib ah aan ku hormar Netanyahu oo beenti ugu weyneed abid sheegay Ra'iisul Israa'iil macnaha waraysi la yeeshay wuxuu ku sheegay hadal la yaab noqday waxa uu ka hadlayay Yurub iyo soo galootiga iyo xaaladda ka haysata wuxuu leeyahay qaaradii Yurub ahayd xuduudaheedii ay ahayn la horta Yurub culays badan ah haysto waa xaqiiqo oo hadda Spain oo kale dad ilaa Morocco ka soo tahriibay oo lug bad bari soo maray dabaashi ay ka soo bilaabeen xeebaha Morocco iyo Spain ay Spain ku soo galeen markaas ay Yurub sida hal mar dad meel laga soo daayo kale ayuu ooda soo gaastay Spain soo galeen waxyaabaha dawladda Spain xitaa cadaadis saarayo warbaahintii buunbuuninayaan kuwa Israa'iil iyo Mareykan iyo fursad bay u arkaan ilaa Spain Falastiin ay taageertay soo galootigan waa dadka reer Spain la kicinaya waxa leeyahay dhulkiini macnaha soo galootiga soo buuxsamay Afrikaankan iyo Carabtan qaar kamida mushkiladda ay isla waxay tahay dalkoodii loo uriyay madax musuqmaas socota haysto dadkii dhulkii intay wax ka soo saaran lahaayeen shaqaysan lahaayeen wallahi qaaradda Yurub waxay ka fursado badan tahay 1000 jeer iyo 20,000 jeer Yurub iyo America laakiin cilada dhulka ma ahan dadkana ma ahan waa nidaamkii dadka heli lahayn nidaam ay ku soo saartaan hore u socon lahayn hadii laga shaqeeyo dadku hadda dadka ka soo jeeda tusaale ahaan Rwanda uma baahna inay tahriibaan ma arkays qof Rwandees oo hadda tahriiba xiliyada hore ma sheegay laanu dhulkiisii baa nabad iyo barwaaqo iyo shaqo iyo amni iyo waxbarasho iyo nolosha asaasiga u fadhiis qofka guriga degana kama walwalaay wuxuu cunana kama walwalaay shaqada kama walwalaay waa waxyaabihi asaasiga qofka markuu helo uu noolaanaya intii la leeyahay marka aan u soo noqonna ninkii Netanyahu waxaanu ka faa'iideysanaa marka maadaama Spain iyo Yurub iyo xiisada iyo xaalada iyo ajnabi nacayb ay ka socoto uu kula daaranaya wuxuu ku leeyahay
ninaa la weydiiyey kulaha waxaa la dhahay luqadda carabi maxaa u baranaysaa carabigu baranaya Netanyahu waa dhahay markaasuu yidhi carabiga waxaan u baranayaa waxaan rabaa inaan France England galo macnaha wuxuu leeyahay carabtiya ka buuxsantay Faransiiska iyo maarta Ingiriiska waxaa dhinaca kale loo farsaran karaa rag dadkii annaga aan ka soo bursanay bariga dhexe ayaa hadda waxay u imaanayaan buu leeyahay Europe ila daawadan. You could see it coming, but it certainly came a lot faster than people thought. And somebody said, they asked him, why are you studying Arabic? He said, because I want to be able to go to London and Paris, And that's all right. You can have Arabic immigrants, that's Arab immigrants, that's not the point. But if you lose control over your borders, you lose control over your fate and your destiny and your future. wuxuu leeyahay nin baa la weydiiyey inta u socotaa London iyo France u socdaa ana carabiga saasaan u baranayaa ana wuxuu leeyahay ujeedka ma in ajnabiga la naco carab aan la qaabilin laakiin wuxuu leeyahay haddaad xuduudaha lumiso waxaa luminaysaa ujeedkii iyo wixii wadankaada meesha u socday ibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo afjaraynaa mar kale maanta Iran ayaa lagu waramayaa in ay garaacday saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Kuwait Iran mar walba waxay ballan qaaday haddii la garaaco inay iyaduna garaacayso oo wixii lagu dhuftay wax la mid ah inay ku dhufanayso haddaba waa maxay weerarkan Iran weerarkan waxay uga jawaabaysaa kii lagu dhuftay Khasham Island oo aad ay uga carootay oo burbur weyn la gaaray guryo dadweyne la burburiyay oo la arkay dadka qaar dhaawacooda imeedkooda oo laga soo saaraya daaraha ay burburiyeen duqeynta ciidamada Mareykanka haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan sida laga soo xigtay ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran waxay Iran weerartay ama diyaaradaha droneska u adeegsatay oo ay ku weerartay saldhigga Mareykanka ee Ali Salim Air Base mar kale waxay ku andacootay inay burburiyeen laba xarumood oo lagu kaydiyo droneska ama droneka loo yaqaan drone hangars kayd shidaal oo loo yaqaan fuel depot meel dhan oo shidaalka ciidamada Mareykanka ay ku kaydsanayeen ayay sheegeen ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran inay gubeen sidoo kale waxa ay sheegeen in weerarka uu ahaa jawaab ay uga argudanayeen weeraradii Mareykanka uu ku qaaday gudaha dalka Iran waxaana warkan laga soo xigtay warbaahintu ay ka soo xigteen Mehr News Agency wakaalada wararka ee Mehr haddaba warkani waxa ma xaqiijiyeen ciidamada taliska dhexe Mareykanka wali ciidamada taliska dhexe Mareykanka si rasmi ah uma xaqiijinin laakiin Kuwait waxa ay sheegeen in ay qabteen qaar kamid ah droonada Iran qaar kale weerarada Iran droneskeedana inay ku dhaceen gudaha dalkaasi Kuwait haddaba isku soo duub warkan waxa sheeganaya burburka shidaalka xarumaha la gubay kaydadka droneska ciidamada Mareykanka inay droneska Iran gubeen waxa sheegaya oo laga helaya oo kaliya ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran si kastaba ha noqotee Mareykanka iyo Iran waxay u muuqdaan kuwa hore iyo gadaal isu garaacay inkastoo qiimaha shidaalka lagu waramayo inuu hoos u dhacay haddana waxa jirta cabsi ah inuu dagaalka soo laba kacleeyo oo meel halisa uu gaaro iyadoo dhinaca kale laga baqayo dagaalka Sacuudiga iyo Xuutiga inuu heerkii ugu sareeyo gaaro oo uu fido iyadoo dhinaca dagaalka Hormuz iyo Mareykanka Iran la suurtagalnimo inay jirto in Israa'iil ay ku soo biirto dagaalka iyadoo ujeedaduna ay tahay in Israa'iil ay doonayso dagaalka inuu sii daba dheeraado doorashada ku soo socoto Israa'iil oo xilligeedii la sheegay inay dhacayso 27 Oktoobar saaxiibada ay walaalaha qiimiga leh barnaamijkii galabnimo oo aad kala socoteen Kow Somali Media qaybtan galabtu waa inaga intaa tan inta aynu kulmayno barnaamijkan mid lamida waa walaalkii Mustafa Cali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina ha ahaato salaamu calaykum